Turkiga oo doonaya inuu ka hortago qorshaha guud ee la xiriira qaabka isu-taga Imaaraadka Carabta oo doonaya in uu curyaamiyo kheyraadka dabiiciga ah ee ku jira badda Soomaaliya si aan loo soo saarin. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa waxa uu sheegay in xilligan dowladooda ay dooneyso sidii looga hortagi lahaa wax walba oo dib u dhigi kara fursadaha guud ee la xiriira qaabka loo soo saari karo shidaalka dabiiciga ah ee Soomaaliya, maadaama ay jiraan dalal fara badan oo arrimahan si toos ah uga hor imaanaya. Waddanka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu dejiyay qorshe ku aadan ku qabso ku qadimaysid, taas oo macnaheedu noqonaya in wadamo fara badan oo Afrika ah in waddanka uu doonayo in dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba in uu soo dhaweysto, isla markaana uu u dhaqaaqo qaabkii wadamadaas uu u qabsan lahaa siyaasad ahaan. Waxaana dalalka qaar arrimahaasi diidana dowladdan ay ka shaqeynaysaa sidii ay u heli lahayd arrimaha guud ee ku aadan in la sameeyo jabhado iyo kooxo hubeysan oo diiradda lagu saarayo sidii dalalkaasi loo colaadi lahaa. Sarkaal sare oo ka tirsan dhanka iyo dowladda Turkiga ayaa waxa uu sheegay in xilligan la joogo aanay suuragal noqon karin marka la eego dhaqdhaqaaqyada guud ee Turkiga uu wado ama Imaaraadka uu wado, taasoo ka dhigaysa in xukuumadda Ankara ay ka shaqeynayso qaabkii looga hortagi lahaa isku daygaasi, maadaama dowladdan inta badan diiradda ay saareyso qaabkii looga jawaabi lahaa isku dayadaasi Imaaraadka Carabta uu ku doonayo sidii Soomaaliya uu uga faa'iideysan lahaa, isagoo doonaya danihiisa gaarka sida hadalka loo dhigay. Ilo wareedyo muhiim ah ayaa dhanka kale waxa ay warbaahinta Xuraansi u sheegeen in maalmihii u dambeeyay ay dhacayeen kulamo intooda badan looga arinsanayay qaabkii looga hortagi lahaa wadamada badan ee doonaya in aanay xilligan la soo saarin kheyraadka dabiiciga ee Soomaaliya ku dhex jira, taasoo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta xukuumadaha Muqdisho iyo Ankaraba ay ka shaqeynayaan qaabkii loo curyaami lahaa arrimahan dartood wadamadaas doonaya in ay diiradda saaraan, sida ay sheegeen ilo wareedyo kala duwan oo arrintaasi ka hadlay. Sarkaal sare oo ka tirsan dhanka iyo dowladda Turkiga waxa uu dhankiisa tilmaamay in ay socdaan isku dayo kala duwan oo la xiriira arrimahan, taa oo ka dhigaysa in mas'uuliyiinta iyo xubnaha Ankara ay raadinayaan qaabkii loo fuli lahaa howlgalkan, taasoo sidoo kale suuragal uga dhigaysa in la ogaado xogaha iyo macluumaadka kale ee ku aadan arrimahaasi. Warbaahinta Xuraansi waxay dabagal ku sameysay ballanqaadyo hore oo ay sameeyeen dalalka qaarkood, taasoo ku aadan in ay Soomaaliya ay ku garab istaagayaan soo saarka waxyaabaha dabiiciga ah ee dalka laga helo sida kheyraadka bariga iyo tambadda, taasoo keentay in dalal badan ay garab istaagaan Soomaaliya, halka dalalka qaarkoodna hagardaamo, colaadin, abuuro jabhado iyo in ay Soomaaliya qaybo ka mid ah ay ka sameystaan saldhigyo aanay fasax ugu qaadan dhanka iyo dowladda federaalka. Imaaraadka Carabta waxa uu Soomaaliya ka joogaa Berbera iyo Boosaaso, taasoo keentay in ay kordhaan colaadaha xooggan ee Imaaraadka Carabta uu doonayo in uu galaangal ka muuqdo. Waxa uu ka fadhiyaa dhanka iyo badda cas, iyadoona dowladda Imaaraadka Carabta galaangal muuqda ay ku leedahay arrimaha guud ee ku aadan dhanka iyo geeska Afrika. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda isu-taga Imaaraadka Carabta ayaa dhowaan sheegay in dowladdaasi ay u soo jeesatay wadamo fara badan, Soomaaliyana ay ka mid tahay, taas oo la xiriirta qaabkii Imaaraadka Carabta uu u raadin lahaa damaciisa ku aadan in uu guulo muhiim ah ka gaaro marka la eego geeska Afrika iyo sida wax loo wado. Sarkaalkan waxa uu hoosta ka xariiqay in ay socdaan dhaqdhaqaaqyo kale oo la xiriira qaabka ugu fudud ee waddankan isu-taga Imaaraadka Carabta guulo muhiim ah uga gaari karo, laakiin Turkiga ayaa u babac dhigay isagoona qalab casri ah ku xiray meelo u dhow saldhigyada ciidanka Imaaraadku leeyihiin, maadaama waddankaasi muddooyinkii u dambeeyay uu adeegsanaya dhanka tiknoolajiyadda casriga. Laakiin Imaaraadka Carabta ayaa wax soo iibsada, xitaa iskaba dhaafay gaadiidka ciidanka dalkaas ay wataan ee wadamada qaarkood la geeyey ayaa laga soo iibiyaa dalal badan oo Yurub ah, iyadoona kadib loo wareejiyo dalalkaasi. Laakiin Turkiga waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxa weeye in uu soo saaranayo shidaalka, waa gaadiidka, maraakiibta iyo sidoo kale diyaaradaha casriga ee duuliye la'aanta, kuwaas oo mar walba xogo kala duwan duubi kara, haddii la gaarana fursad weyn arrintaas u noqon karta. Wararka ayaa sheegaya in waddanka Turkiga
u wado dhaqdhaqaaq guud oo la xiriira arrintaasi, iyadoona muddooyinkii u dambeeyey ay soconayeen isku dayo kala duwan oo lagu doonayo qaabkii looga hortagi lahaa in shidaalka Soomaaliya la hor istaago. Wixii warar iyo dhacdooyin arrimahan ka soo kordha, warbaahinta Xuraansi ku daawo.